Mikel Arteta waa cadeeyay sababtii ka dambeysay barbarihii Nottingham Forest. Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa qeyrtay in kooxdiisu ay la'eed dadaal ama firfircooni lagu burburiyo Nottingham Forest. Gunners ayaa barbaro gool la'aan ku galay City Ground habeenkii Arbacada natiijo dhaawac ku ah rajadooda hanashada horyaalka Premier League. Markii ciyaarta dhamaatay Arteta ayaa sheegay in qaab ciyaareedkooda uu ka fiicnaa guuldaradii 1-0 ee West Ham kaga soo gaartay garoonkooda toddobaadkii hore. Wuxuu yiri waxaan gacanta ku haynay ciyaarta. Waan isku dayna siyaabo kala duwan. Waxaan sameynay dadaal badan balse waxaan lahayn firfircoonadii iyo baasaskii ugu dambeeyay aan ku jabin lahayn. Koox si wanaagsan isku soo abaabushay. Waa inaan abuurnaa fursado badan oo aan ku heli karno natiijooyin bartilmaameed ah. Waxay ka duwanayd heerkii guuldaradii West Ham. Waxaan u difaacana si adag tamar iyo ujeedo leh. Rabitaankeena wuxuu ahaa inaan wax sameyno. Ma ahayn inaan rabitaan la'aan ahayn. Ilaa dhamaadka ayaan isku daynay balse ma aanan guuleysan. dhinaca kalena daafac Manchester United ka tirsan oo ganac ku sheegaya kulamo waaweyn. Daafac Manchester United Patrick Dorgu ayaa wajahaya ganac 3 kulan ah kadib markii uu casaan toos ah qaatay intii lagu guda jiray guushii 3-2 ay ka gaareen Ipswich Town habeenkii Arbacada. Dorgu ayaa kooxda kaga soo biiray Lecce intii lagu jiray suuqii kala iibsiga ee bishii Janaayo. Xidigan 20 jirka ah ayaa kaliya ciyaaray 3 kulan tan iyo markii uu yimid United. Dorgu ayaa kulankan wacdar ka dhigay inkastoo uu qalad ku lahaa goolkii ugu horeeyay ee United laga dhaliyay daqiiqadii afaraad. United ayaa dib u soo laabatay hogaankana la wareegtay iyadoo Sam Morris ka dhaliyay gool halka Matis Delat uu isna gool dhaliyay ka hor inta uusan Dorgu casaan qaadan. Dorgu ayaa qalad ku galay Omari Hodgson daqiiqadii 43aad. Garsoore Darren ayaa ugu dambeyn casaan siiyay kadib markii VAR uu dib eegis ku sameeyay. Philogene ayaa dhaliyay goolkiisii labaad ee ciyaarta daqiiqado yar kadib ka hor inta uusan Harry Maguire mar kale hogaanka u dhiiban United isagoo madax xoogan ku dhaliyay goolka guusha daqiiqadii hore ee qaybta labaad. Casaan la siiyay Dorgu ayaa ka hor istaagaya inuu ka qayb galo 3 kulan ee xiga ee tartamada gudaha isagoo seegi doona kulanka wareega shanaad ee FA Cup-ka ay la leeyihiin Fulham Axada. Tababare Ruben Amorim ayaa sidoo kale waayi doona daafaca Danishka kulamada Premier League ay la ciyaarayaan Arsenal garoonkooda iyo Leicester. Si kastaba ha ahaatee Dorgu wuxuu heli doonaa fursad uu kaga qayb galo labada lug ee wareega 16aad ee Europa League oo ay la ciyaarayaan Real Sociedad.